قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز kusoo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran madaxda sare ee Ahlusunna oo ka soo horjeestay guddiga farsamada ay dawladdu magacawday kadib markii lagu booday xubnaha ay doonayeen in laga siiyo guddiga farsamada ee magacawday dawladda Soomaaliya oo la ogaaday inay ku jiraan dad caan ah oo ka tirsan shaqaalaha dawladda marxuumba in Ahlusunna ay magacaabayso guddi soo xulay xildhibaanada galmudug xogayaan idinkaga haya howlgalo lagu dilay xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo laga fuliyay Jubbada Hoose madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo diiday dalab ay hor dhigtay xukuumadda Soomaaliya sheegay inuu ka qayb galay caleemasaarka saaxiibkiisa Axmed Madoobe dawladda Soomaaliya oo hay'adaha amniga caasimadda iyo gudoomiyaasha degmooyinka fartayaan Muqdisho lagu qaban karay shirar siyaasadeedsan khilaafkii ka dhashay dhismaha golaha deegaanka Buula Bardo xoogeystay iyo dagaal laga cabsi qabo inuu magaaladaasi ka dhaco iyo dawladda Kenya oo ka jawaabtay dacwadii ay ka gudbisay Soomaaliya haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز madaxda guud ee Ahlusunna wal Jameeca ayaa ka soo horjeestay guddigii farsamada maamul dhisida galmudug dawladda Soomaaliya ay magacawday habeenkii xalay ahaa kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn oo iskugu yimaadeen Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan Sheekh Cabdirasaaq Al-Ashcari gudoomiyaha Ahlusunna wal Jameeca Macalin Maxamuud iyo xubno sare ka tirsan ururka ayuu ku sheegeen in guddigaas ay qaadaceen maadaama iyaga loo diiday inay xubno ka helaan warar soo baxaya ayaa sheegay in saacadaha soo aadan lagu wado in hoggaanka Ahlusunna ay ku dhawaaqaan guddiga farsamada ee dhismaha galmudug guddigan waxaa ku dhawaaqi doona gudoomiyaha guud ee Ahlusunna wal Jameeca Macalin Maxamuud waxaana la filayaa inay soo xulaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug Sheekh Cabdirasaaq Al-Ashcari oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee Ahlusunna ayaa qoraal dheer oo soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay cashar ka baratay dhacdooyinkii xumaa ee sanadkii 2015 dawladii Xasan Sheekh Maxamuud ay ka sameysay galmudug iyo tii ku dhacday dawladda Soomaaliya ayaa hadda waxay wajahaysaa culays weyn oo kaga imaanaya hoggaanka Ahlusunna wal Jameeca waa khilaaf cusub oo soo food saaray dawladda lamana oga halka ay mari doonto dawladda Soomaaliya tabashada ay hadda muujiyeen hoggaanka Ahlusunna saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ayaa jawaabada ka bixiyay dacwad ay dhawaan Soomaaliya u gudbisay hay'adda maamusha hawada ee Kaawa ee qaramada midoobay saraakiishan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay inaysan wax shaqo ku lahayn diyaaradii siday madaxweynayaashii hore ee galmudug koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ee dhawaan ka degtay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen in Kenya ay hoggaamsamayso xeerarka caalamiga ah isla markaana aysan marnaba ku xadgudbeen hawada Soomaaliya ugu dambeyn waxay tilmaameen dawladda federaalka ay xaq u lahayd inay qabato diyaaradaas isla markaana ay difaacatay hawadeeda dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan xayiraad saartay Kismaayo balse waxaa jabisay diyaarad ka timid Nairobi taasoo dawladdu ku dacweysay hay'adda Kaawa si wax looga weydiiyo dalka ay ka timid oo ah Kenya arrintan ayaa soo xoojisay xiisada labada dal oo markii hore isku hayay muran badda oo haatan dacwadiisu ay ka furan tahay maxkamadda cadaaladda ee ICJ wararkan ka helayna duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayeen halkaas ciidamada ammaanka Jubbaland ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan ciidanka ammaanka Jubbaland ayaa howlgal ka sameeyay galbeedka gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan aaga deegaanka Beerxaani iyadoona sheegin halkaas lagu dilay dagaalyahano badan oo ka tirsan shabaab saraakiisha hogaaminaysa howlgalka oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen howlgalkan intuu socday lagu dilay 5 kamid ah dagaalamayaasha shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Beerxaani afayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in dadka lagu dilay howlgalkaas uu kamid yahay madaxii maaliyadda ee deegaanada miyiga Al-Shabaab u qaabilsanaa oo magaciisa lagu soo koobay Cali ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ka dhan Al-Shabaab ka wada deegaanada ka tirsan Jubbada Hoose
wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug kaas oo ka shaqeyn doona arrimaha maamulkaasi oo dhawaan doorasho galaya. Guddiga ayaa ka kooban ilaa 13 xubnood oo matalaya beelaha degan deegaanada uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale guddiga ay magacowday dowladda Soomaaliya waxay iskugu jiraan la taliyaal ka tirsan dowladda, shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo xubno caan ah oo u ololeynaya musharax qoorqoor oo ay dowladda Soomaaliya u wadato inuu madaxweyne uga noqdo Galmudug. Guddigan ayaa iska dhex dooran doona gudoomiye kadibna wuxuu gudagali doonaa howlaha shaqo ee loo igmaday. Guddigan waxyaabaha uu qaban doono waxaa ka mid ah ansixinta liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug, xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala hogaamiyaasha dhaqanka Galmudug iyo soo gudbinta hogaamiyaasha dhaqanka ee saxda ah iyo xildhibaanada wakiilada Galmudug. Wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya waxaa warbaahintu u akhriyay kusimaha wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda Isaaq Maxamed Maxamuud kaasi oo ka dalbaday shacabka reer Galmudug inay la shaqeeyaan xubnaha guddigaasi. Dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya uu kala noqday maalmo ka hor wakiilashadii uu wakiishay arrimaha Galmudug sida doorashooyinka dib u heshiisiinta kadib markii uu ku eedeeyay inaysan waxba ka qaban intaaba ayaa taageeray wareegtada lagu magacaabay guddiga farsamada maamulkaasi. Xaaf ayaa sheegay inuu ka qayb qaatay magacaabista xubnahan isla markaana ay la shaqeyn doonaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wuxuuna faray inay si cadaalad ah ugu shaqeeyaan shacabka Galmudug. faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan xasaasi ah u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wasiirro uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shirka oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday ayaa waxaa diiradda lagu saaray khilaafka Puntland kala dhaxeeya dowladda iyo arrimo ku aadan caleemasaarka Axmed Madoobe. Madaxweyne Deni ayaa ogolaaday in wada hadal uu la galo dowladda federaalka si loo dhameeyo khilaafka labada dhinac. Warar kale oo aan helnay ayaa sheegay in wasiirrada ay ka codsadeen madaxweynaha Puntland Siciid Deni inuusan ka qayb gelin caleemasaarka saaxiibkiis Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland, taasina uu ka biyadiiday. wasiirrada la kulmay madaxweynaha Puntland oo kale ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, kalluumaysiga Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa ku guul dareystay qorshahan ay u socdeen waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan Muqdisho dib ugu soo laabtaan. wafdigan wasiirrada ah ee tagay Puntland ayaa deegaanahan ka soo jeeda maamulkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay amar si hoose loola wadaagay hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo maamulada degmooyinka kaasoo ku saabsan in Muqdisho lagu qaban karin shirar ka dhan ah dowladda Soomaaliya. waxaan ogaanay in mas'uuliyiinta degmooyinka, kuwa gobolka iyo talisyada ciidamada lagu wargeliyay inay joojiyaan dhammaan shirarka ka dhanka ah dowladda ee ka dhaca hoteelada, maqaayadaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo sidoo kale goobaha la iskugu yimaado ee Muqdisho. idaacado iyo telefishinno ku yaala Muqdisho ayaa laga joojiyay baahinta muuqaalo looga hadlayay xaaladda dalka iyo siyaasadda. muuqaalada la joojiyay ayaa ahaa Fox Pop aragtida dadweynaha. sidoo kale waxaa la diiday inay warbaahinta ka hadlaan dadka ka cabanaya nadaafad darrada Muqdisho iyo jidadka xiran, waxaana warbaahinta qaar loo diiday inay duubtaan codad dadweyne. dhismaha guriga hooyooyinka maqaayad ku taalo oo lagu magacaabo The Village oo ahayd goob kulmisa wariyaasha iyo siyaasiyiinta iskugu jira mucaarad iyo muxaafad ayaa loo keenay warqad waxaana lagu wargeliyay in maqaayadda la xiri doono haddii ay ka hadlaan dad iskugu yimaada halkan ama uu ka dhaco shiraysan dowladdu ka warqabin. sidoo kale hoteelo iyo maqaayado ku yaala Muqdisho ayaa sidaas oo kale looga digay in xarumahooda ka dhacaan shirar dowladda lagu mucaaradayo iyo inta aan la qaban guud ahaan shiraysan dowladdu ogeyn. siyaasiyiinta miisaanka culus leh ayaa badanaa shirarkooda ku qabsada xarumo ay ka degan yihiin Muqdisho sida xarumaha xisbiyada. khilaafkii ka dhashay dhismaha golaha deegaanka Buulo Barde oo xoogeystay. qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan ayaa mar kale waxay iska soo horjeesteen dhismaha golaha deegaanka degmadaas oo ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle. odayaasha warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay marnaba aqbalin sidii hadalka u dhigeen isku dhac iyo colaado sokeeyo oo laga dhex abuura bulshada nabdoon ee Buulo Barde. iyagoo sii hadlayay ayay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle Caadle waxay ku eedeeyeen inuu iska horkeenayo bulshada degmada isla markaana taasanaysan aqbalayn. sidoo kale waxa ay hadalkooda intaasi ku dareen in degmada Buulo Barde ay go'doon tahay muddo 7 sano ah
hase yeeshee maamulka Hirshabelle uusan isku dayin hal maalin inuu furo wadooyinka kala xiran ee magaaladaasi. Ugu dambeyn dowladda ayay ugu baaqeen inay soo farageliso arrimahan ka taagan Buulo Berde gobolka Hiiraan, isla markaana wixii ka dhaca Buulo Berde uu mas'uul ka yahay Maxamed Cabdi Waare, wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Cali Guudlaawe. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Galcad Media News. Galcad Media News.